qaybta 16aad oo ugu dambaysa xeer nidaamyaasha iyo tilmaamaha amarada wasiirku waa inuu soo saaraa xeer nidaamyaasha iyo tilmaamaha amarada loogu baahdo in si taabagal ah oo hufan loo hirgeliyo qodobada xeerkan xeer nidaamyaashu waa inay waafaqsadaan dhammaan qodobada xeerkan ama xeer kasta oo kale uu leeyahay dowlad goboleedka Hirshabelle Soomaaliya oo lagu maamulo arrimaha uu taabanayo xeer nidaamyaashan wasiirku iskama soo saari karo waxay tahay wax muwaafaqsan yihiin wixii oo dastuurka ogolaa iyo nidaamyada waa inuu horta u jiraa oo soo maraa qodobka 43 waxaan leeyahay numberka 43 wasiirku wuxuu soo saari karaa tilmaano amaro ama wax uu wakiilan karaa saraakiisha loo ogol yahay ama wakiilada dakhliga ururinta ee loo aqoonsan yahay ee ku qeexan qaybta 24 ee xeerkan oo la xiriira sida taabagal ah oo hufan oo loo hirgelinayo xeerkan wax kale ma aha nin inuu meel iska istaago oo lacag iska qaato oo boon iska isticmaalo sharci maaha waa in ogolaasho wasaaradda arrimaha maaliyadda uu ka haystaa qaybta 12aad canshuurka qaadista NGO-da iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha kale ee maareynta maaliyadda qodobka waxaan leeyahay numberka 44 ruqsadaha iyo shatiyada cid kasta oo maamulaysa ama doonaysa inay qayb urur aan dawli ahayn NGO ugu shaqeeyo dhulka dowlad goboleedka Hirshabelle Soomaaliya waa inay isdiiwaan gelisaa ayna haysataa shahaado diiwaan gelin ah oo soo saartay wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ah waana inay iska bixisaa khidmadda diiwaan gelinta si waafaqsan jadwalka soddonaad meeshaas golaha wasiirada wax badan ay ka doodeen hadda waxa bixiya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose sababta qorsheynta waa xiriirka caalamiga waaye ha soo marto laakiin degmooyinkii iyo gobolladii waxa jooga wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladihii hoose marka golaha wasiirada waxay isku soo raaceen in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose laga dhigo idinku hadda tan ku raacdaan tana dhaqan noqon doonta laakiin meeshaas saas ay tahay xawaana arrintaas dib u fiirsan waa jeclaa lahaa qodobka 44aad marka arrimaha waxay ka hadlayaan arrimaha NGO-yada iyo sida canshuurta loogu qaaday waxyaabahaas qodobka 18aad qaybta 22aad ujuurooyinka degedda annaga deged ma lihin laakiin waa yeelan doonaa waa in aydan la raaciyaa ujuurooyinka degadaha qaybta 23 ujuurooyinka garoonka diyaaradaha ujuurooyinka ka hadlayaan qodobkan tabeelaha waa raaci doonaa oo ku qoran yahay diyaarad walba meeqa laga qaadayaa baasjeeriga meeqa laga qaadayaa oo ku qoran tahay qaybta 24aad wakiilada dakhli ururinta dhammaan dakliyada kala duwan ay ka mid yihiin macnaha kuma koobno laakiin aan ku koobnayn canshuuraha ujuurooyinka lacag laga qaado ganaaxyada ay qaadaan ama loo qaado wasaaradaha waxa jira wasaaradda maaliyadda kaliya lacag ma qaado wasaaradaha kale lacag ay qaadaan مثلا wasaaradda duulista gaadiidka duulista hawada land fee qaadaa laakiin magaca wasaaradda ku qaadaa ama hay'adaha kale dawladda waa in loo qaadaa loona maareeyaa si waafaqsan siyaasadaha nidaamyada iyo habraaca loogu dejiyay tilmaamaha uu soo saaro wasiirka kontrisaal dhammaan dakliyada la qaado iyada oo laga wakiil yahay dawladda waa in loo meereeyaa loona diiwaan geliyaa si waafaqsan nidaamyada iyo habraaca loogu dejiyay xeer nidaamyaasha uu soo saaray wasiirka qodobka 25aad wakiilada dakhli ururinta ee la aqoonsan yahay waxyaabihii shuruucda aan u baahnaynay ka mid tahay meeshaan sababta qof walba oo meel istaaga wuxuu leeyahay dakhli ururina shati gooni uu leeyahay Hirshabelle waa aragteen qolo walba meesha joogtay wax ka qaadataa marka wixii xakameyn lahaa dakhliga ururinaya ay meeshan ka hadlaysaa qodob oo wakiila marka taasina waa caddahay waxaad ku daraysiin soo akhriya waxaad ku daraysiin waa arki doonaa insha Allah qodobka 20aad beeshka 20aad shacabka qaadista hantida declaration of wealth qodobkan waxa waaye xataa dawladda federaalka weli ma sameeynin waxa ka hadlayaa dadka madaxda ah oo hawsha loo dhiibanayo maaliyadooda inay soo cadeeyaan wasiira wuxuu qabanayaa 2 bilood ama 6 bilood oo joogaya ama la sanad oo joogaya
waxa malaayiin dollar oo guri oo dhistay qodobkaas waa ku jira hadhow markaa saarayso anigu maxaan lahaa iyo laakiin qodobkan hadda registrationka golaha wasiiradana waa lagaga dooday waxa lagu soo koobo siday tahay loo daayo sababtu waxay tahay wili wax sameeyay male